qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa garab istaagay go'aanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku diiday in wax wada hadal ah oo Itoobiya kala yeesho arrimaha badda ee Soomaaliya. Jelle Cali Nuur oo ah siyaasi falaqeeya arrimaha ayaa waxa uu geeska Afrika iyo waliba dhinaca la xiriirta Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika ayaa waxa uu warbaahinta qaranka mar uu rameeyay oo sheegay in tani ay ka dhigan tahay asbaabaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku muujisay jiritaanka iyo ka gorgortan la'aanta geyiga Soomaaliyeed madax banaanadiisa. Bismillahir Rahmanir Rahim. walaal waa dhawahay waa idin salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto si gaar ah shaqaalaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed iyo reediyaha waa idin salaamayaa dhammaantiina runtii daandaansiga dowladda Itoobiya waxay u muuqataa mid ay ayadu maaragtay hawsheedu dhab ka tahay waana maaragtay ku socotaa wadadii qaldaneed weli kamay tanaasulin kama harin Itoobiya waxaan la soconaa hadda in mar dhow lagu wado inuu Abiy Ahmed uu tago Hargeysa si uu maaragtay heshiiskii u xoojiyo runtii haddaanan arrintaas maaragtay laga hortagin oon looga hortagin si walba oo maaragtay looga hortagi kara haddaanan lisku duubnaan oon laga hortagin oon dowladda u istaagin halistaas way socotaa. Abiy Ahmed wuxuu aaminsan yahay Soomaaliya inay ka mid tahay Itoobiya waxa uu u hadlayaa mar walbana sida Soomaaliya iyadoo oo ay tahay meel ka mid ah kiilka shanaad wuxuu u haystaa Muqdisho in uu asaga maartay xukumo. Nasiib darro weeye taas, nasiib darro weeye inaanan lagu baraarugsanayn, in aanan mas'uuliyiinteena maantayso kelmadaha ay adeegsanayaanna ay tahay kelmado jilicsan dalkiina uu sidaa ku sii socdo. waa nasiib darro. waan ka qaylinay, waan ka dignay halistaas, haddana halistii maartay way socotaa weli way muuqataa. cadowgu wuu haliilayaa, cadowgu wuxuu rabaa inuu ka dhabeeyo hadafkiisuu rabaa. marka waa daandaansi foolxun, waa arrin qatarteeda leh weeye. arrintaas waa arrin qatarteeda leh ha laga digtoonaado insha Allah. iyadoo la ogyahay in shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda qarankuba ay si qoto dheer uga hadleen aadna uga dhiidhiyaan arrintan damaca guracan iyo dulmiga Itoobiyaanka iyo madaxdooda ay wadaan, haddana waxaa jirta in mararka qaar la dareemayo maxaa loo fahmi karaa? waxaa loo fahmi karaa haddii waa sax inuu si dhumaalaysi ah inuu ku tago rabo maartay Hargeysa uu la kulmo Muuse Biixi. runtii arrintaas waxa weeye hadafkiisa ayuu rabaa inuu ka dhabeeyo. waxa uu ku socdaa wadadii qaldaneed buu weli ku socdaa ninkaas. luuqadda oo lagula hadlayana waxa ugu adag ee ku hadli kara waa dowladda. dowladda sax weeye, way dadaashay maartay urur goboleedka IGAD maartay way ku dadaashay, beesha caalamka way ku dadaashay, African Unionka sidoo kale dacwadihii way faafisay. arrintii waxa loo baahan yahay waxa lala hadlayaa waa dowladda Itoobiya weeye. cid kale oo ayna wax nagala dhaxayaan ma jiraan. dowladda Itoobiya in lala hadlo, tallaabo maartay laga qaado oo dowladda tallaabo qaado, safiirka meesha joogo maartay wadanka si dhaqsale uga bax in la yiraahdo, xiriirada loo jaro, madaxweynaha afkiisu uu kugu dhawaaqo
إن إثيوبيا حدودها أو دن كحري ورياي حرنان بهدي ربان لكن وإنه مدحوينها فعل سمية وإنه دقاقة وإن ماركتي أرنتاس سلوغا هرتغو وإن مدحوينها تلابا قاداوي مر هدي وكاقا أتكاذي باش عالمك وكاقا أتكاذي محا هبون مركا مدحوينها وحاكو هبون مانتا إنو قدها مارتي أبابو الكسميو وزيرك قاشان ديق آوي وزاردي مارتي دفاع قرنك آوي عيدا مذي الغوري لها آوي حتى مددان هذا مرن كان انتو مارتي ودان هذا اي سوق شيء هذا waxaa laga joogaa muddo 40 cisho waa laga joogaa imisa ciidan baa la qori karaa muqdisho maanta hadii la yiraahdo ciidan baa la qoraya kumanaan baa ku iimaanayso oo waliba Ethiopia loo qoray la yiraahdo ummadoo dhan baa ku iimaanayso hal lagu dhawaaqo in ciidan la qorayo hal la socdo hal loo guntado in dalka la difaaco aniga maanta kama hadli karo inaan baarlamaanka dastuurkiisa la furin in la furo in maartay taas maartay wax dambe weeye waxaas wixii baarlamaankan maartay wax loogu qaban lahaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha wadadiisa idinku hagaajiyo dalkan wax badan baa qabyo ka aha wax badan baa leeyahay waxba weli maqan ummadan Soomaaliyeed way ku burburtay sil maartay wax loo gaaro in ayada oo maartay la isku duuban yahay oo mid la yahay oo walaal la yahay in dalka la difaacda loo baahan yahay waxa la rabaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud si degdeg ah inuu ciidan ku qoro in uu dalka kaga dhawaaqo xaalad degdeg ah in uu maartay safiirka Ethiopia ee Soomaaliya fadhiya inuu si degdeg ah wadanka uga saaro maxay tahay waxa aan dhowranayno hadii sharafkii iyo karaamadii iyo midnimadii Soomaaliyeed lagu soo xadgudbay maxay tahay waxaan dhowranayno marka hadda gobolada Soomaaliya inta ka soo duushay diyaaradda Ethiopia gobolada Soomaaliya oo dhan degayso ganacsigeedu u socdo waxooda u socdaan ma doorka anaga maanan qaadan markaas doorka ma qaadan marka dawladda doorkeeda ha qaadato madaxweynaha aad buu u mahadsan yahay dadaalka uu sameeyay iyo dhammaan warfaafinta Soomaaliyeed iyo koow ka yahay TV-ga qaranka Soomaaliyeed sida uu u shaqeeyo nidaamka uu maartay u wacyi gelinayo in ummadda dalkooda ay difaacdaan aad baan idinkugu hambalyeynaya u taagnaada dalka difaaciisa wacyi gelintiisa insha Allah ta'ala waxa oo maartay maanta cadawga nagu soo haliilaya aan u midowno waxaan filayaa waliba Soomaali mid ay ku midoobi lahayd in midaan ay tahay ma rabno annaka dagaal sokeeye waa ka soo daalnay qabiil waa ka soo daalnay gobol saddex xaraf inta lagu qoro la yiraahdo hebel baan ahay saddex calan oo kala midab la taago waxaas waa laga daalay maanta midnimaan u baahannahay midnimada maanta aan u baahannahayna midaan uu hadda Abi Ahmed maartay uu noo hogaaminayo weeye asaga arintaas aanu ku midoobi karnaa insha Allah ta'ala aniga saasaan dhihi lahaa marka arintaasna waa arin fool xun weeye marka Abi Ahmed muxuu wax ugu qaadan la yahay kula tahay jawaabihii ay bixiyeen wadamada caalamka oo intooda badanba uga digay hantida ummadda Soomaaliyeed biyaha iyo barigaba digniinihii la siiyay muxuu wax ugu qaadan waayay Abi Ahmed waxa uu wax ugu qaadan waayay Abi Ahmed dagaal buu soo galay Tigray buu dagaal maartay la galay Tigray buu maartay ayada oo la qaylinayo oo la leeyahay ummadda saaha u dhameeynin ummadda maartay kada xasuuq la leeyahay European Unionkii beesha caalamka dhammaan ayagoo qaylinayaan ayuu intuu dhigaha ka fureystay buu dagaal maartay oo aan dhamaanaynin oo yu dalkiisa dagaal galiyay oo diiday inuu la hadlo mucaaradkiisa inuu la hadlo diiday in uu maartay wax wada hadal oo furo ama soo dhaweeyo arintaas wuxuu asaga maartay ku qiyaas qaadan hayaa adduunka oo dhan ayuu soo maartay soo jiiray wuxuu leeyahay arintaas baan maartay yaan khibrad ka haystaa caalam qaylinayana danteyda iyo maartay ma yaqaanaan
cid inta soo baxdo gacmaha ay qaban kartana ma jirto abi axmed waa ka go'an tahay madaxdan Soomaaliya ee hurdaan la yaabaya ee aanan doorkooda qaadanaynin oo aan dalkan sidii lagu difaaci lahaa hataa baleemkooda aanan haynin taasa maartay murugtu nagu hayso taas weeye waxa maartay aan la seexan laanahay taas weeye laakiin abi axmed hadafkiisu waanu naqaanaa hadafkiisu waa dagaal waa inuu Soomaaliya laba u kala gooyaa waa inuu Soomaaliya uu asaga maartay hoostiisa ay imaadaa sida uu mar uu la hadlaayay maartay xildhibaanada baarlamaanku la hadlaayay golihiisa la hadlaayay abi axmed hadallada uu ku hadlaayay miyaan Soomaali wax ku qaadan karin maxay tahay waxaas abi axmed golihiisu ayuu ka cadeeyay oo yiri wardad gaajaysan waxba sharci ma qabanayo yiri dad gaajaysan anaka waxaan u gaajaysanahay bad iyo biyo inaan aragno taas wuxuu yiri cid naga hor istaagi karta ma lahan miyaysan wax ku qaadan karin miyay arkaynin ninkan soo u hadlayo hal nin oo ka hadlay sidoo u hadlay oo yiri anigana waxaan hadaad badda haweysatay anigana harar iyo habaash baan habeen damba ka qadaynaya qof yiri ma hayno taas way waxa dhibka nagu haya maaragtay mas'uuliyiintii waa in ay ayagana arintan maaragtay u soo jeestaan haddii dalkan aan dan laga lahayn gooni weeye taas waxa dan kale ilaahi subhanahu wa ta'ala ha ummadda Soomaaliyeed ha badbaadiyo adawga ha ka badbaadiyo insha Allah ta'ala war tabar kasta aad lahaatid tabartaada iyo maartay kartidaada inaad ku dagaalanto way ninka baarlamaanka hortiisa ku yiri baahi baan u qabaa inaan biyaha arko waan soo arkaya xoog baan ku soo arkaya yiri waxa looga jawaabi lahaa oo kaliya inay tahay harar iyo habaash yaan annakana aan ku hooyanayna marka aad inta soo aado inta weeye waxa oo abi axmed uu maqli karo ama uu maartay oo sameyn karo gobolada qaar baa hadda maartay ii sheeg adiga kacdoonka ay dhab ka tahay sida gado kale cid hadda abaabushay oo maartay wax siisayna aysan jirin laakiin waxaan maqlay ayaga naftooda in ciidamo lagu soo kala furay yaa difaacayo gado soo dal Soomaaliyeed ma aha hadday ka dhiidiyeen biyihii maartay Ethiopian soo galay hadday ka dhiidiyeen oo rabeen in ay aaway dawladii hanka u qaban lahayd dadka xuduudada ka warqabi lahayd aaway waxaan leenahay dalkan ha laga daayo dayaca ha laga daayo ha loo istaago ha laga hadlo insha Allah ta'ala waxaan filayaa in dawladda wixii hadda ka dambeeya ay gudaha u soo jeesato insha Allah ta'ala runtii waxaan fariin u dirayaa dawladda Soomaaliyeed in maaragtay taxadir dheeraada la muujiyo oo arintan sida ay hadda ayaga maaragtay halbeeg ay ku cabirayaan mid ka weyn weeye arinta sida ay hadda u haystaan mid ka weyn weeye waa ficilladooda iyo waxaan aragnaa iyo waxa maaragtay ay sameynayaan dacwadihii wixii waa lagu guuleystay laakiin abaabul gudaha ma jiro marka insha Allah ta'ala dawladda oo hogaaminayo mudane ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre dhammaan dawladaha qaybaha kala duwan oo dhan waa in xaalad degdeg ah lagu dhawaaqaa waa in wasaaradda gaashaandhigga la howlgeliyaa waa in nin qubaradii ciidamada maartay khibrad u lahaa ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan madaxweynaha waa inuu yeeraa hal madaxweynaha waa ku hambalyeynaya in uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu la kulmay labadii madaxweyne ee kaga horeeyay xukunka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed xaaladda dalka ay hadda ka jirtana in ay ayagana ka run sheegaan talada ay siiyaan uu qaato ciidamada la qorayana fikrad iyo qayb ay ka qaataan insha Allah ta'ala rag qubara in loo yeero arintaas waxa weeye waa waxa aan ku midoobi karno weeye oo dalkana ku difaacan karno insha Allah ta'ala waxaan fursadan qaaliga ugu faa'iideysanayaa inaan u hambaliyo baarlamaanka Soomaaliyeed oo aan iraahdo mar haddii aad isku raacdeen in aad maartay wax dhameystirtaan wax fiican oo nuxur leh idin ka soo baxo qofka diidan in wax la dhameystiro qof meel u socdo ma ahan ha yeelina warkiisa laakiin dhameystira
wax fiican oo suuban haydan ka soo baxeen insha Allah taala waaba hadii talaabo loo dhaqaaqo waa hadaan loo dhaqaaqin ee xaaladda degdeg oo dalka la galana madaxweynaha la shaqeeya meesha uu maartay dalka u socdo waa aragtaan isjiijid iyo muran hadda midna meeshan ma taagno dad waxaa jira ku caan baxay inay wax mucaaradaan oo sidaas ku helayo kursi sidaas ku helayo maartay maksab iyo maal ku raadinayo mucaaradnimo wax lagu raadiyay oo annaka dhaxdaanada ah 35 sano 45 sano ayaa ninka kale kalarka hayay maxaa meel loo gaari waayay meel lama gaarayo baarlamaanka Soomaaliyeed Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe waa u hambalyeynaya marxalad adag buu ka bixin doonaa waana ogahay hal adeegiisaan ogahay waa aqaana insha Allah taala marxaladahaas adag oo kalena nin aan Sheekh Aadan Madoobe oo kala ahayn kama bixinayo insha Allah taala xaalad degdeg ah wadanka haduu galana la shaqeeya madaxweynaha taladayda weey insha Allah taala waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed gacmaha aan isqabsano aan iska difaacno cadawga maartay ummadda Soomaaliyeed ee ah Ethiopia insha Allah taala arintaas qof walba si gaar ah ay u taabanaysaa waayo qarannimadii ummadda Soomaaliyeed iyo sharafkeedii baa lagu soo xadgudbay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in aan ku midowno dhammaanteennaba insha Allah taala ninka mucaaradka ah maxaad mucaarad u noqotay ma dhihi karno laakiin xaalad mucaarad waa yahay 40 sanaad mucaarad aheed maxaad ka keentay taaweey waxa anaga noo hortaagan 40 sano dawlad kastoo la dhisay hadaad mucaarad maxaad keenaysaa waxba ma keeni kartid anigu maxaan ahaa mucaarad iyo muxaafid maxaan sameyn karaa war xaaladan oo kale oo dalka ku jiro fikrad oo ummadan lagu badbaadin karo oo ciidan qaran lagu dhisi karo ciidan ummadda maartay Soomaaliyeed lagu dhisi karo kana xiga iyo kana maartay isku gobol ka imaanay iyo kana inta laga sugayaa ma jirto hadaad gobolada ciidan u dirsanaysana waa welcome u dirso laakiin maanta hadii awood ciidan la hayo oo ciidan Soomaaliyeed la hayo maanta maartay waxa ay sheegayaan Ethiopia ma aysan sheegeen marka insha Allah taala ciidamada loo istaago ciidamada sida lagu dhisi lahaa loo istaago dhaqaalaha Soomaaliya oo runtii dhaqaale yar aan ahayn meelaha uu ka baxayo madaxweyne fiiro gaar ah uu yeelo dhaqaalaha Soomaaliya dhaqaale yar ma ahan rag baa ku xisaabtamayo rag baa adigu kugu dhow oo musuqmaasuq 24 saac laga sheegaya dhaqaalaha oo dhan xir dhaqaalaha ciidan ha lagu bixiyo askariga hadda la qorayo mishaar ha loo bilaabo ummad badan oo masaakiin ah jirtay xaqootaano waxa hadda oo ay nimanka runtii maartay dhaqaale cunida bartay ay cuni lahaayeen war u kaadiya dhaclooshiina waxaad cunteen waad cunteen wixii hadda ka dambeeyo dalka la dhisayaa oo ciidan baa lagu dhisayaa ciidamada ha cunaan ayaga ha ku cunaan ayaga muhiimad u ah oo dalkan difaacayo إن شاء الله تعالى هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهاجاك داودياشا قيمها يقدرنتا إننا مدنو برامجكا كعدون شعب أياد نغلا سعطان تلفزيونكا قرنكا سوماليات إنكي إيمانيا